بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa la sheegaa ballan oofintu inay tahay astaamaha lagu garto hogaamiyaha suuban iyo inuu ilaaliyo qowlkiisa ayna u baahan tahay go'aan adag iyo dhiirani. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu damcay isagoo Madiina jooga inuu soo cumraysto oo uu magaaladii Makka markaasi Qurayshtii aan rumayn ama diintiisa soo raacin ay joogaan waa Qurayshtii uu ka soo qaxay isagoo firdhadan markaa uu Madiina yimi. laakiin marka Nabi Maxamed wuxuu watay saxaabo ilaa 1400 lagu qiyaaso. Quraysh waxay yiraahdeen Nabi Maxamed iyo kooxdiisa way idinku soo duulaysaa saa waxay soo direen ciidan xogdoona oo wardoona oo xaqiijiyay inay weerar u socdaan oo laga tabaabashaysto iyo inay wax kale u socdaan. laakiin ciidankii waxay ogaadeen in Nabi Maxamed iyo kooxdiisa aanay u soconin dagaal ay u socoto inay soo cumraystaan isla markaana aanay hubaysnayn. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markii uu soo baxay saxaabadiisa wuxuu kula ballamay inay soo xajiyaan inay soo cumraysanayaan. ciidankii Quraysheed waxay soo direen iyaguna wafdi. Nabi Maxamedna wuxuu saaray isaguna cid afayeen u ah oo la hadasha. dadkii markaa uu diray inay magaalada galaan fariintiisana u gudbiyaan wuxuu ahaa ama qofkii uu doortay wuxuu ahaa Usmaan bin Affan. Nabi Maxamed saxaabada wuxuu kula ballamay oo ay ku soo tala galeen dhammaantoodna ay qorsheynayeen in markii ugu horeysay Nabi Maxamed ay la cumraysanayaan maadaama Makka intii ka horeysay ay reer Quraysheed haysatay oo loo diidanaa. ciidankii Quraysh soo dirtay iyo Nabi Maxamed waxa dhex maray heshiis caan ah oo ka dhacay meesha loo yaqaan Xudaybiya waana heshiiska loogu magac daray heshiiska Xudaybiya. heshiiska Xudaybiya maadaama nabigu aanu weerar u socon iyaguna aanay weerar ahayn wuxuu noqday madashii ugu horeysay ee Nabi Maxamed iyo tolkiisa Quraysheed ee soo saaray ama ka soo saaray ay si ka fool ah oo aan dagaal ahayn markaasi ay ugu wada hadlaan. heshiiska Xudaybiya ka hor Nabi Maxamed wuxuu diray markaa qof xaqiisa matala oo ciidanka muslimiinta matala oo magaaladii Makka aada oo la soo hadla markaasi dadka magaalada jooga iyo maamulkooda. ninka uu dirayna markaa wuxuu ahaa Usmaan bin Affan. waxa la sheegay markaa Usmaan in la dilay oo ay dileen reer Quraysheed. inkastoo nabigu aanu warkaasi xaqiijin karin laakiin isaga iyo saxaabadiisa way soo gaadhay markii dambe soo beenoobay. Quraysh miiskay soo fadhiisatay Nabi Maxamed iyo saxaabadiisina miiskay soo fadhiisteen halkaas oo laga bilaabay markaa in la qoro qodobada lagu heshiinayo. qodobkii ugu horeeyay heshiisku wuxuu noqday horta kow cumradana u socotaan inaad joojisaan oo ka laabataan oo idinaan sanadkan cumraysan in Nabi Maxamedow ciddii adiga xaggaaga ka soo muslinta aad soo celiso aad anaga noo soo celiso laakiin ciddii xaggaaga ka timaaday anaga noo timaaday aanan soo celin iyo in aan la isu soo bahaysan cadawga shisheeye ama cid kale oo aan labada dhinac ahayn inaan la isku soo bahaysan labada dhinacba aan isku soo bahaysanin haddana aad joojisaan safarkiina isla markaana ku laabataan magaaladii Madiina. saxaabadu way diideen waxay diyaar u ahaayeen inay xajaan iyagoo xanaaqsan oo go'aan ka diidan bay nabiga ku yiraahdeen Nabi Maxamed miyaanad noo ballan qaadin inaanu soo cumraysanayno. nabiga wuxuu ku yiri waan idin ballan qaaday laakiin ballan qaadkaygu kuma jirin sanadkan inaan soo cumraysanayno. sidee baynu qof muslina oo diinteena qaatay aynu ugu celin karnaa iyaguna ka inaga tagaa aanay noogu soo celinayn sidee waxaasi feer u tahay. laakiin saxaabadu waxay arkeen iyagu detailska ama qodobadaas hadda muuqda oo kaliya wuxuu nabigu eegay waxay ahayd fariinta bixi doonta iyo miiska maanta ay wada fadhiyaan isagoo ordaya magaaladii uu ka baxay dadka maamulayay iyo isagoo maanta ciidan kan wata inay wada fadhiistaan inay guulahayd. wuxuu kale ku kalsoonaa diinta uu wado iyo dadku inay ku qanci doonaan. waxa soo galay Abu Jund oo ahaa markaa saxaabi soo muslime oo ka soo baxsaday Makka oo aan heshiiskan waxba ku ogeyn. nimankii Quraysheed heshiiska qoray waxay yiraahdeen heshiiskan ma shaqeynay haddii ninka hadda ku soo galay aanu ka bilaabmay. ninka waa inaad noo soo celiso oo uu anaga noo soo noqdo. waa saxaabi dirqi ku soo fakaday aan ogeyn ba heshiiskan la galay. Nabi Maxamed inta uu caadifadooday ma oran macquul ma aha idin ma diibay laakiin wuxuu eegay hal qof dantii ma eegina mustaqbalka diinta iyo heshiiskan qiimaha uu leeyahay iyo waxa ka dambeyn doona. waxaanu ballantii uu oofiyay markaa reer Quraysheed oo la heshiinayay heshiiskana markaa uu fadhiyay taasoo saxaabo badan oo 1400 ka mid ahayd oo saxaabadii waaweyn ay ka mid ahaayeen ay ka biya diideen laakiin Nabi Maxamed uu ku adkaystay go'aankii uu u fuliyayna
waxaa la sheegaa in go-aanka adayga iyo ballan fulintaasi saxaabo badan ay ka daadegi weyday laakiin 2 sano kadib nebi maxamed iska daa inuu soo cumraysto oo soo xajo oo keliya 1400 buu maalintaa watay isagoo 10,000 oo ciidana oo dadkii soo rumeeyey ah uu u yimi tallaabada tii ku xigtayna ay noqotay inaan intan magaalada Maka iyo Madiina iyo Carabta gudaheeda oo kaliya lagu meeraysanina inuu beershaankii iyo dawladihii kale adduunka ku jiray uu bilaabo qorshe markaa uu diinta ku gaarsiin lahaa sal iyo furana ay u ahayd heshiiska sulh Xudaybiya in guusha inta laag fatxu Maka uu gaaro hogaamiyuhuna waa kamar walba ballantiisa oo fiican xataa haba qaraaraato oo dadka la socda iyo kuwa la jooga haba ku diidaan ama kaga soo horjeestaan manaha kamar walba isku daya inuu qanciyo doonista dadka ee mararka qaar go'aanada qaar ka hor imanaya doonista dadka laakiin qofka hogaamiyihii uu arkayo in wax soo saarta ka weyn ay dhali doonto uu ku dhaqaaqo kulankan sheekadaas ku soo koobaynaa intaan ku kulmi doono sheekada dambe dhamaantiin waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh